kusimaha taliyaha ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliya General Mukhtaar Xuseen Afrax iyo waliba saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay xaflad balaaran oo lagu qabtay dugsiga tababarka ee Idris Faarax Xaban oo ku yaala duleedka caasimadda waddankan Jamhuuriyadda Jabuuti. xafladda ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee dalkani Jabuuti iyo sidoo kale saraakiisha ugu sarsaraysa ee ciidamada dalkani Jabuuti oo ka mid yahay General Secretary Sheekh Ibraahim. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay siyahayaha safaaradda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe iyo waliba madax kale oo ka tirsan saraakiisha wadamada saldhigyada ciidan ku leh waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti. xafladda ayaa ugu horreyn waxay ku bilaabatay gaadinka ciyaara ciidamadii halkaasi lagu tababaray oo tiradoodu ay gaaraysa 171 askari halkaasi ku soo bandhigeen. waxaana ciidamadaasi markii goobtaasi ay soo gaareen ay halkaa ugu horreynba ku qaadeen heestaanta calanka Soomaaliya. intaa kadib ayaa goobta waxa ay ciidamadu ku soo bandhigeen tababaradii ay qaateen oo ay ka mid tahay qaabka ka hortagga dibadbaxyada rabshadaha wata iyo sidoo kale sida ciidamadu ay uga soo saari karaan guryaha ay ku dhuumaalaystaan kooxaha argagixisada ama kooxaha dhibaatada geysta iyo qaabka la doonaya in ciidankaasi ay wax u qabtaan oo ah mid loo tababaray ciidamadaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyey kusimaha taliyaha ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliya General Mukhtaar Xuseen Afrax waxaana sheegay in tababarkan uu yahay mid ahmiyad gaar ah u leh ciidamada booliska ee Soomaaliya. ciidankan waxaan rajaynaynaa in noqon doonaan ciidan runtii wax weyn ka qaban doono amniga sidii waxaan ku barteen iyo aqoontoodii inay dalkooda u adeegaan aan u rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo. tababarkaana waxaa bixiyey dowladda Talyaaniga iyo dowladda Jabuuti oo runtii dowladda Jabuuti waxa weeye dad aan nahay dad walaal ah labada bandiiraan oo kala duwan maana dad isku mid ah nahay ma ilaawi doono abaalka iyo dadaalka ay u soo galeen in Soomaaliya amnigeeda uu soo laabto. runtii waa dowladda kaliya oo aan dhihi karno maalin walba iyo habeen walba waxay u taagan yihiin in Soomaaliya amnigeeda uu soo laabto. marka waxaan leenahay waa mahadsantihiin. dowladda Talyaaniga sidoo kale dhaqaale badan ay ku bixisay in ciidanka Soomaaliyeed ee booliska qaasatan uu dhismo ayagana waa mahad celinaynaa. intaa kadib waxaa goobtaasi ka hadlay taliyaha ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Jabuuti Korneyl Cabdullaahi Cabdi Faarax. xafladan oo soo gabagabeynaysa tababar 3 bilood ah oo u socda dhalinyaro Soomaaliyeed aanan ka qayb galnay annaguna aan ka qayb galnay ka ciidan ahaan iyo tababar ahaan. xafladda noocaasi hada jeer markaan isku nimaadno waxay tilmaamtaa farxad iyo raq iyo dareen ay nagu abuurto ah nolol 3 bilood oo soo wada nooleyn oo soo gabagabaysmaysa. ميكائيل عبد الرشيد بريك راديو تلفزيون قرن الصوماليات جيبوتي.